Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Sosman Official Channel. Useful sentences jumlado waxtar leh. My uncle lives in a castle. He's absolutely minted. My uncle adeerkay lives in waxa uu ku nool yahay a castle guri qasri ah. He's absolutely minted. gebi ahaanba waa nin hodan ah ama tujaar ah aad maalqabeen u ah. It's pleasure to meet you. farxad bay ii tahay inaan kula kulmo. It's pleasure to meet you. farxad bay ii tahay inaan kula kulmo. I'm a bit miffed. waan yara caraysnahay because maxaa yeelay I didn't get the job. ma helin shaqada. I'm a bit miffed. waan yara caraysnahay because maxaa yeelay I didn't get the job. ma ana helin shaqada. Rumors from that area. hadalla ku tiri kuteen ah ee areas nagu yimid said ayaa waxay dhaheen that two men in laba nin waa killed lagu dilay and four others afar kalena wounded badly si xun loo dhaawacay. Rumors from that area. hadalla ku tiri kuteen ama hadalla suuqeed ah oo areas naga soo gaaray said ayaa waxay yiraahdeen that two men in laba nin waa killed la dilay and four others afar kalena wounded badly si xun loo dhaawacay. He was accused of making waxaa lagu soo eedeeyey ama lagu soo dacweeyey sameynta an assault farxumeyn on his stepdaughter gabadhu adeerku yahay uu ku sameynay. He was accused of waxaa lagu soo eedeeyey making an assault farxumeyn uu ku sameynayo on his stepdaughter gabadha uu adeerka u yahay. She was born and bred in Somalia. waxay ku dhalatay kuna soo barbaartay Soomaaliya. She was born and bred in Somalia. waxay ku dhalatay kuna soo kortay ama barbaartay Soomaaliya. Boys from the next block. wiilasha ka imaado blogga dambe ama blogga xiga broke ayaa jebiyey the window pane muraayadda daaqadda muraayadeeda waxaa jebiyey boys from the next block broke the window pane. Gambling is a bad habit. khamaaridda ama khamaarku waa balwad xun ama hibaayad xun wey waa caado xun. It rained heavily. waxa uu u daay roobka si xoog leh yesterday shalay. It rained heavily. waxa uu u daay roobka si xoog leh yesterday shalay. The situation of Somalia. xaaladda Soomaaliya is getting worse. way ka sii daraysaa ama way sii xumaanaysaa. Improve your pronunciation. Improve your pronunciation. Useful sentences. My uncle lives in a castle. He's absolutely minted. It's pleasure to meet you. I'm a bit miffed because I didn't get the job today. Rumors from that area said that two men were killed and four others wounded badly. He was accused of making an assault on his stepdaughter. She was born and bred in Somalia. Boys from the next block broke the window pane. Gambling is a bad habit. It rained heavily yesterday. The situation of Somalia is getting worse. ألف لو كنا بي ألف لو سنا بي ألف لا قضي